daawade fadlan subscribe saar mudanayra channel waxaan idin soo tabi doonaa warar joogto ah iyo muuqaalo idin xiiso geliya bismillahirrahmanirrahiim salaama salaan kadib waxaan rabaa maanta in eray murtiyo Soomaaliyeed aan ka wada hadalno maamada waxay dhaheedaa aflagaado colaadna wax kama tarto nabadna way ka geysaa markii ugu horeeyay ee aan mahmadan maqlo waxay ahayd bari anoo jooga Liibiya iyo nala xiray xabsi Liibiya ku yaala nala geeyay xabsiga waxa ku jira Soomaali badan iyo Eritrean iyo Suudaan dadkan inta badan waxa loo soo xiray waxay ahaayeen adoo waa taqaanaa dad kulligood rabay inay tahriibaan xabsigii dadka aan isku barana waxa kamid ahaa wiil Maxamed la yiraahdo محمد wuxuu aad u isticmaali jiray kaniinigan la yiraahdo waxaan madax xanuun ku roono Tylenolka ama ibuprofenka waxa jirta marka qola IM la yiraahdo oo maalinta Khamiista timaado oo qofka xanuunsan soo yara wareysanayso kaniinina soo siinayso Maxamed ki marka uu ku badbata Khamiis kasta gacanta u taagtaa soo helay ibuprofenkaas markaan Maxamed isbarno marka wuxuu yirniyo adaa cusube maanta hadii qolada IM ka timaado gacanta taago oo adiga soo ana xanuunsan dheh xagee laga hayaa dil duraana madaxa dheh si aad igu soo qaado Tylenol markii wiilka saaxiibaan noqonay ay haaneen gacanta aan taagto maalinka Khamiista markay yimaadeen waxaan u tagnay qoladii aliigay qol ay fadhiyaan qof dhakhtar iska dhigay oo ku wareysanaa marka xagee laga hayaa madaxa xanuunaa is box meeshaan Tylenol iga soo bixisay markaan bixi maaga liirmay interview aad mareeda qof ku wareysana waxa la iigeeyay nin magaciisa igu sheegay Francesco oo Talyaani ah Francesco bis uu i wareystay wuxuu yiri ka waran noloshiina xabsiga waasay waxaan uga sheekay marka dhibaato badan ee xabsiga jirto waxaan irinay waa nala garaaca dadka xanuunsan lama daweeyo shaqo inta la wada lagu soo shaqeystaa la soo aad u dhibaato badan uga sheekay wuxuu yiri birritoola jimcaha yiri xabsiga waxa soo booqanayo yiri midowga Yurub baarlamaankiisa oo markaas uu madaxweyne ka yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka marka wuxuu yiri markay ka meesha ay soo galaan yiri xerada aad ku xirantihiin aniga waan soo wadaa waxaan keenayo qolka adinka aad ku jirtaan markaan ku keenay la yiraahdo yaa hadlaayo gacanta taago waxaan aan adiga ii sheegayso yiri ayagu sheeg okay andrew هذا قولك حبسي كان كسر نقد الصومالي ده نصر نقد حاجة نمية هو بريتولا ميدا وغيره بعصا الصعدة مركو نوي ماذا نيك الطلياني كان والله صوب الله من مركو حان ربعنا دبتين وشعره هذه ضدك وحيدهن والله فكر في عنواي هو ولا تعبان هاي اللي بكوانا ندرك كسيبينا ووشينا دبتنا لو هايو لاي سيدي الله هذا مرة عشي عمل أي طول سيسة سيحنايا يا ويل ضدك حرن كميدا عبد العزيز اللي هذا والطبيعة أهان dadku ma bahad laba habeenkii inta madaxa dhulka dhigto lugaha kor u taagto oo sidii ay ugu qayliya oo waxa la siraaniga waxba ka qaldan ninkii ay yeeray wuxuu baraada balkaalay aanu tagay wuxuu yiri niyahow caaw mahmahan ku sheegayo wuxuu yiri mahmah in ku sheegay ii sheegay waxay tabaamad wuxuu yiri aflagaado colaad wax kama tarto yiri nabadna way ka geysaa waxaan ula jeedaa yiri hadii maanta biri markay yimaadaan yiri gaaladan midowga Yuruba ee aad dhibaatada iyo ceebta nimanka ay nagu hayaan aad u sheegto yiri markay tagaan cid noo harayso wal Liibiyaan yiri markuu wuxuu yiri niyahow tan ugu aflagaadeeda badhana gelin yaa habeenka xogaa waa yara fakiray adi maalinka dhanoo fakiraay subaxii waaga markuu bariyay irideen la soo furay waxa soo galeen midowga Yurub wasiiro iyo xildhibaano qolyooyin kaamirooyin wato idaacadii caalamka الجزيرة CNN BBC تلفزيون بدنا مجحنا مركز أنا قانو يا صور قلنا قبر لبناني سيوتان وترجمان عيدهن حلقة في عربي كهلي يقان وآن ورئيسنا نباهنا دل يردنا حلا وحي وجايين موقتا إن أنا جان كوب تشنين أنا وحلا وحنا عبد الساق عنه حلا وين استاجي قبل دي أمرك عيد السؤالين إذا ميدينا عيد محد وحرنتين waxaan saddex siba waa u xiranahay qolo waxay u xiran tahay ayagoo dal shisheeya sir sharci darro ku soo galaya yaa la soo xiranay qolana naftooda ayagoo haligaayo badda isku shubaayo alla soo qabtaan yiri
qolana ayagoo magaalada iska socdaa la soo qabtaan markaas waxaan ka dhigaa in yacni wax dhibaataa badan aysan jirin waxay tiri waayahay nolosha xabsiga ka waran waxaan idhi nin yahow inteenaan maanta haddiina la yidhaha waa lidindaynaa ee xabsiga ka baxa in magaalada naloo deeyo qaab aan u noolaana xitaa ma naqaano sababta waxaan idhi xabsigaan waxaan ku haysanaa 3 cunto qada quraacasho waxaan ku haysanaa waxbarasho waxaan ku haysanaa shaqo oo shaqaana la siiyaa waa soo shaqaysanaa marka waa runtii shaqo way jirtaa laakiin shaqadu waxa waaye inta la wada lagu soo shaqeeyo lagu soo dilaa adoo tacbaana lagu soo celina marka waxaan idhi xabsigaan nolol fiican ayaan ku haysanaa waxaan idhi hogaamiyaha kacaanka ee Liibiya Colonel Muammar al-Gaddafi muwaadinka Soomaaliga wuxuu u yaqaanaa idhi muwaadinka labaad ee Liibiya marka Soomaali haddaan nahay aad ugu sharfanaa Liibiya wax dhibaa ma qabno marka waxaan idhi aadaan ugu mahadcelinaa saraakiisha meeshaan nagu haysa aad ay noo dhaqaalayaan anoo u jeedaa marka waxaa isbedelay wejigii saraakiisha Liibiyaanka isdhahay ninkaan ama balaayo sheega farxad qoladii Yurubna waa yaabeenba nin xabsiga amaanaya dhahay wax dhibaa ma qabno waxaan intaasaan u soconay waan baxeynaa waxaan intaadan bixin su'aal mid weydiiya waxaan adinku maxaad ahaydeen maxaad naga soo doonteen wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka nin ahaa markaas ay jawaabay wuxuu waxaan yiraahday wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka waxaan ninka hadda hogaaminayo qoladan reer Yurub ee xabsigan soo booqatay waxaan meeshan u nimid oo yiri in aan hubino yiri budget aan ku bixino dadka soo tahriibay dhaqaale aan ugu talagalnay oo si loogu badbaadiyo marka hadda qaabka aad noogu jawaabto yiri waxaan ba dareemeynaa oo dhaqaale aan Liibiya ku siiyeen inay wax fiican ku qabanayaan waana mahadsantahay wax kala oo jecesha weydiileen ma jirto waxaan yiri wax kala ma haye waxaa maanta waa maalinka ugu horreeyay inuu qof Jarmala oo soo hor istaago marka taana waxay ii tahay mudnaan gooniya aan ku mahadsantahay adoo ay naga tagay Soomaalidu waxay isleeyihiin ninka ayta waxba ku ballanteynay xagoo amaan uga sheekay waxaan 5 daqiiqo dhameynaa mudiir Nuur al dhihi jirnay kama sheestay iyo saraakiishiisa socdaan soo wada noqdeen Cabdirasaaq weynak ay kana waxaa la yiri maanta waxaad rabto dalbo waa ku sameeynaa waxaan irshana marka dhimar rabtay oo tacbaan ahaayeen marka xabsi ku jirnaa horta waxaan irshantaan dhimar rabto meesha ka sii daabo shantii loo yiri gurihiina ma taqaanaan irda ka bax maxaa kala rabtaa waxaan intaana nada ilaa maanta dambi uma xirinay nin wuxuu rabtaa dawladda u xirantiin hal mar irida kama furi karo laakiin habeen kasta shanaan deynaa kulligii meesha wada ka deynaa ee balkaala adii koon inta ila buuxir adigana irida ka bax iska bax marka horta meesha aan u socdo ma ahan xabsigaas aan ka sheekeyno waxaan u socdo waxay tahay aflagaado colaadna wax kama tarto nabadna way ka geysaa inaad dulucda ku jirtaa waxay tahay maanta markaad qof caaydo colaadii labadiin idin ka dhaxaysay waxba uma aadan dhibin nabadda idin dhaxaysayna waa dhumisay marka maanta Soomaali hadana waxaan u badanay qof kasta dad u aflagaadeyna markasta oo wax aflagaadeydana adna nabad waad ka fogaanay qofkii aad aflagaadeydana dib muuqdood u geysan malahan marka waxaan baraarujinaynaa wanaaga iyo quruxda bisle inaad afkaaga bartoodan dadka aadan cayn kii ku caayana aad u sabarto ma mahadsantiin